بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواada casharka labaad ee barashada luqada Turkiga ee buugga Aqbiir waa Ibraahim Cali Afrax Ibraahim Xagaa maanta waxaan qaadanaynaa chapterka koowaad waxaan soo baranaa alifbeetada unita bir waxaan ku baran doonaa tanishma salaamlashma maslakleer tanishma isbarasho waay salaamlashma sida la isku salaamo maslakleer iyo shaqooyinka dilbilgisi dhanka grammarka iyo naxwaha markii la fiirina waxaan baran doonaa bu, şu, o, kim, ne. Çoğul 2, lar. Soru 2, mu. Burası neresi? Halkan iyo halkaas waa kuma, waa maxay? Qaabka loo sameeyo jamaca su'aalaha iyo sida tilmaamaha halkan waa halkee loo yiraahdo. Aan ka bilowno salaanta. Ereyga ugu badan ee Turkida isku salaamaan waa ereyga marhaba. Merhaba. Merhaba waxaad arkaysaa inta badan inay iyaga ugu dhawaaqaan merhaba waxay qariyaan haada merhaba marka waxaad dhihi kartaa merhaba sidoo kalena merhaba hazırlık çalışması waxaan qaban doonaa bal aan diyaar garoono maskax burqin aan samayno merhaba isa salaamida qaabka la isku salaamo merhaba see tahay haye haay xaalad ka waran günaydın subax wanaagsan soo u jeed gabadhan haddii soo kacdo gacnaha sidaa oo kala taagayda günaydın subax wanaagsan ayay ku leedahay ama adigoo leedahay iyi günler maalin wanaagsan hoş geldin soo dhawow iyi akşamlar iyadu dhibicay leedahay iyi akşamlar waxaa Turkida ugu dhawaaqaan iyi akşamlar waa la soo gaabiyaa iyi akşamlar iyi akşamlar loo soo gaabiya iyi akşamlar hoşça kal bye bye nabadey balan fiirina marka hadda wada hadalkan dhexeeya labadan qofood waa Cali iyo Muraad Cali ma dhahaan Ali ayraadiga Cali wuxuu leeyahay merhaba seeta haye benim adım Ali magacaygu waa Cali senin adun ne adigu magaca Muraad soo boodo marka benim adım Muraad magacaygu waa Muraad benim adim maaha benim adım Muraad magacaygu waa Muraad Ali yaa soo boode memnun oldum isbarasho wanaagsan Muraad soo boode wuxuu leeyahay aniguna memnun oldum isbarasho wanaagsan qaybtan kala fiiri waxaa hadlaysa labada gabdhood oo sheekaysan labada gabdhood ee la kala yiraahdo Dilek iyo Zeynab Dilega waxay leedahay selam Zeynab nasılsın haye Zeynab selam merhaba aan soo aragnay waxaa la mid ah selam qofka waxaad dhihi kartaa selam Zeynab haye Zeynab nasılsın sidee tahay nasılsın way kala sigsan tahay hadda laakiin waa la isku dhajiyaa macnaha u kala sikiyey wuxuu rabaa inuu wax dambe marka aad gaartad ogaato laakiin ereygu nasılsın wuu isku xiran yahay waa hal xabo Zeynab soo bood waxay tiri iyiyim waan fiicanahay Turkidu iyiyim ma yiraahdaan iyiyim teşekkür ederim mahadsanid sen nasılsın adiga sidee tahay soo ma aragtid hadda la isku dhajiyey nasılsın leeyahay Dilek gabadha soo bood waxay raahday teşekkürler mahadsanid ben de iyiyim aniguna waan fiicanahay ilaa hadda waxaan ku jirnaa barashada salaamaha qaybtan bal aan fiirino laba qof oo ajnabi ah oo iswaraysanaysa waxay isweydiinayaan wadankee u dhalatay Hana iyo Austin ayaa hadlaya Hana soo bood waxay tiri nerelisin wadankee u dhalatay adiga Austin soo bood wuxuu leeyahay Nigeeriyaaliyim waxaa la diidaa inaad tidhaahdo Nigeeriyaaliyim ma jiraan waxaas Nigeeriyaaliyim Nigeriyaan ahay sanerlisin adigaa u dhalatay Hana waxay leedahay ben Almanyaliyim anigu waxaan ahay Jarmal ben Almanyaliyim anigu waxaan ahay Jarmal bal fiiri qaybtan labaad waa cunuga yar iyo macallimadiisa wiilka waxaa la yidhahdaa Jan ereyga kalena öğretmen waa macallin magac ma macallin
horay waxaan u soo baranay marka ga'du ay kor wax calaamadaas ka soo fuusho in la yiraahdo yumushaad ga'da la khafiifiyey laguma dhawaaqo ereyga ka horeeyana oo ma aha waa markaas waxay noqonaysaa öğretmen öğretmen lama sax maaha bal wiilka aan fiirino John alifbeetada xusuuso ereyga C waxaa lagu dhawaaqaayay John wuxuu leeyahay günaydın öğretmenim subax wanaagsan macallimadaydii nasılsınız sidee tahay maanta sidee tahay macallimadaydii öğretmen macallimadii hadlaysa marka günaydın John subax wanaagsan iyiyim waan fiicanahay sen nasılsın adiga sidee tahay John'a soo boodaseen wuxuu leeyahay tashakkur ederim mahadsanid macallimadaydii aan iyiyim aniga xitaa waan fiicanahay Pınar Hanım iyo Levent Bey ayaa sheekaysanaya Pınar Hanım waa marwo Bey waa mudane gabadha soo madhaano heblo marwo heblo iyo mudane hebel Pınar Hanım Pınar waa gabar magaceeda Pınar maaha Pınar Hanım hanim maaha Pınar Hanım'a hadlaysa marka marwo Pınar waxay leedahay nasılsınız Levent Bey sidee tahay Levent Bey waa la isku dhijiyaa hadda isaguu kala sikiyey Levent Bey nasılsınız Levent Bey sidee tahay Levent Bey mudane Levent'a soo booday wuxuu yidhi tashakkur ederim mahadsanid ederim way isku dhegan tahay markuu saama kala sikanayo wuxuu kuu sheegi rabaa uu ku xusuusin rabaa inay ka tegi karto tashakkur ederim mahadsanid iyiyim waan fiicanahay waxaan soo dhahnay soo gaabi iyiyim waan fiicanahay sis nasılsınız adiguna sidee tahay Pınar Hanım marwo Pınar'a soo bood waxay dhahdeen teşekkürler mahadsanid teşekkür ederim teşekkürler midaa doonta dheh aan iyiyim aniguna waan fiicanahay aan fiirino marka qaybta saddexaad waa Nihaal iyo Mate Nihaala soo bood Nihaan waa gabadha Matena waa wiilka Nihaan waxay leedahay qaab kaloo la isku soo waxaan soo baranay merhaba in la isku salaamo salaam in la isku salaamo günaydın subax wanaagsan ilaado hadda fiiri never ne yok Mate Nihaan dhayso never ne yok bal xaalka ka warro maxaa cusub never ne yok maxaa jirin Mate never ne yok Mate sidee tahay waay Mate soo booday işte بس عادي والله فناديل محمى işte adof guraada işte markuu israaciyo işte bas waxa sida ogeed aman wax isbedelay male waxna malaha fanaadiil wax isbedela wax macnaha muxuma aad u muxuma fanaadiil wallahi wax tar ma jiraan xun sande adigana neeyo maanta maxaa ka cusub sidee tahay iyada markuu waxay leedahay Nihaan ilik oo fiicanahay صادق أنا عفوا خلاص الله عفو وناك عفو ماذا في المركب نبغى نيوك متى مرحلة كورة إيش ده فناديل الله حالك محمى وح الصوق وش يا قبل ما يقال سنة نبغى نيوك ما أنت هذيك المحا عايزة لك صادق وفي عنا وأنا عفو ما تخاهلا أوكي قد بينا مركب قيبتن كله وحهلا معلمة iyo ardayga fasalku ku cusub yahay macallimada soo gashay waa inay wareegsataa marka waxay leedahay öğretmen macallimada bilaabayso merhaba see tahay senin adın ne magacaa Martin soo booday merhaba isagan wuxuu leeyahay sidee taadna benim adım Martin la yiraahdaa sizin adınız ne adigu magacaa öğretmen macallimada soo boodayso benim adım Filiz magacayga Filiz la yiraahdaa memnun oldum isbarasho wanaagsan Martin wuxuu leeyahay ben de
sidoo kale memnun oldum isbarasho wanaagsan macalimadeydii öğretmen macalimadii hadlaysa waxay leedahay nasılsın sidee tahay Martin wuxuu leeyahay teşekkür ederim mahadsanid iyiyim waa fiicanahay siz nasılsınız adigu sidee tahay öğretmen macalimadii hadlaysa waxay leedahay teşekkürler mahadsanid ben de iyiyim aniga waan fiicanahay nerelisin Martin Martin adiga wadankee u dhalatay Martin wuxuu leeyahay markaa İspanyalıyım İspanyalıyım İspaanish'aan u dhashay İspanyalıyım İspaanish'aan u dhashay öğretmen macalimadda waxay leedahay marka hoş geldin soo dhawow Martin wuxuu leeyahay isagana hoş bulduk waan dhowahay macalimad waxaan fiirina haddana qaybtan kale oo ah qaab kale oo laisku salaamo waxaa hadlaysa laba gabdhood oo la kala yidhaahdo Sinan iyo Öznur Öznur iyo Sinan Öznur ma aha Öznur Öznur iyo Sinan Öznur'a soo boodayso ne haber Sinan Sinan ma gabadha kale magaceeda ne haber maxaa cusub Sinan maanta maxaa cusub seedxo marka dadka Turkiga markay rabaan inay ku yidhaahdaan ne haber saa uguma dhawaaqaan waxay yidhaahdaan ne haber Sinan Siname maxaa cusub Sinan waa soo bood iilik walaa caadi leh senden adigana ne haber maxaa cusub ne haber maxaa cusub Öznur aa soo bood waxay dhahday sağ ol waxaad hore u soo baratay teşekkür ederim iyo teşekkürler oo mahadsanid ah iyadoo si kale loo dhahayo sağ ol sağ ol sağ ol sağ ol ma dhahays sağ ol sağ ol sağ ol waana la kala sikiyaa sidaasaa loogu dhawaaqa mahadsanid benden de anigana iyilik waan fiicanahay waan caafimaad qabaa aan fiirina qaybtan kale Aysel iyo Leyla ismac salaameynaya Aysel waxay leedahay hoşça kal Leyla Leyla mac salaamo Leyla soo bood waxay leedahay güle güle bye bye mac salaamo adigana sonra görüşürüz is aragti kale wacan Aysel soo bood waxay leedahay görüşürüz is aragti kale labada qof markay ismac salaameynayaan ereyda isku mac salaamayaan hoşça kal waad dhihi kartaa güle güle waad dhihi kartaa görüşürüz waad dhihi kartaa qaybtaadii oo ah Ödev layliga adiga lagaa raba inaad samayso aşağıdaki ifadeleri eşleştirelim aşağıdaki ifadeleri cümleden hoos ku qoran erayadan hoos ku qoran eşleştirelim aan isku aadino midda ay leedahay aan ku aadino labadan qof wiilkan gabadhan ayaa sheekaysanaya waxaana laga rabaa inaan mid waliba midda ku aadan aan xariiqin gaarsiino qaybta kuwaad waa sidan görüşmek üzere saragti wacan merhaba merhaba teşekkür ederim waa mahadsan tahay hoşça kal nabadgelyo memnun oldum isbarasho wacan amaan ku faraxsanahay nasılsın sidee tahay nerelisin wadankee u dhalatay ne haber maxaa cusub sidee tahay camal hoş geldin soo dhawow senin adun ne sidee tahay adigan magacaa qaybta kale waa kan Çin waa Shiine Çinliyim Shiines ayaan ahay ben de anigana sidoo kale güle güle mac salaamo merhaba merhaba rica ederim adaa mudan iyilik alxamdulilah iyo wanaag iyo caafimaad görüşürüz saragti wacan Ahmed oo magaca iyiyim waan fiicanahay hoş bulduk waan dhowahay waxaa la rabaa qaybtan inaad qaybtan ku aadiso tusaale ahaan aan mid kaaga shaqeeyo görüşmek üzere saragti wacan görüşürüz saragti wacan adigaa lagaa rabaa marka inaad inta kale isku aadisaan waxaa idin siinayaa 5 daqiiqo kadib adinku ka shaqeeya qiyaas ahaan fiidiyowga celi ka shaqee dan jawaabaha saxda fiirso ilow 5 4 3 2 1 5 ilaa iyo 1 ayaan gadaal u soo tiriyey way dhamaatay hadda marka aan fiirino jawaabta cidda saxday merhaba maxaa ku aadan merhaba ayaa ku aadaysa teşekkür ederim maxaa ku aadaya rica ederim adaa mudan hoşça kal nabadgelyo maxaa ku aadaya
güle güle, bye bye. Memnun oldum. İsparişe vaanan. Ama ku faraxsana maxaa ku aadaya? Ben de aniguna sidoo kale. Nasılsın? Sidee tahay maxaa ku aadaya? İyiyim. Waan fiicanahay. Nerelisin? Yaa u dhalatay yaa ku aadaya? Shiinliyim. Shiinays ayaan ahay. Naabeer. Naabeer. Maxaa cusub xaalka waran? Iilig. Fiicnaan leh wallahi alxamdulilah. Hoş geldin. Soo dhawow maxaa ku aadaya? Hoş bulduk. Kadibna senin adın ne? Magacaa maxaa ku aadaya? Ahmed. Axmed ayaa ku aadaya. Casharka maanta halkaa ayuu inoogu egyahay. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daawashada aad daawateen waad ku mahadsantihiin. 3. derse kadar ilaa casharka 3 laga gaarayo. Hoşça kalınız. Macsalaamo. Abone olmayı unutmayınız. Subscribe-ka ha ilaawina. Kanaalka Cilmi Kororse.